هذا صار لقى صو geedka korkiisa hala iyo firaasha leeyay rakaha ay sameeyay wax geedaha lagu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسكسو نوضنايسن ومركل لي فيديو عصب هدي أنا مقالكم عصب تاعي فضلا سبسكرايب صار لايك نصار كسو دو مقالكم ما انتو حكالي دونا فيديو oo iska soo duubtay fanaanada deeqafro videogaas waxaan ka yaabay bulshada Soomaaliyeedna ay ka yaabtay way bal videoga intaan ka hor dhicin aynu wada daawano bismillah magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro waxaan videogan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimcaha waan salaamayaa dhammaan inta videogan daawata ama dhageysan doontaba waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii aan muddo badan ka fikrayay ilaa yaraantaydii ilaa hadda waxayna tiri waxaan maanta ka hadli doono waxaan ilaa yaraantaydii ka soo fikirayay aan ilaa maanta ka fikirayo bal waxa ilaa yaraantaydii ilaa maanta ka fikiranaysana bal aynu la eegno sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeyaa waana lagu kala dambeeyaa anigu se waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintuu iga oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxaan doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle iyo qodin waxay tiri in marka aan dhinto aan la aasin bal waayahay halka ay rabtay in la geeyo maalinka dhimato bal aynu eegno inaan la aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahay oo aan ku dhashay oo aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan la gelin baan ilaahay ka barya subxaan allah waa wax lala yaabo wallaahi meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa in geed la saaro anigu waxaan ku dhashay meel booq la yiraahdo dhinaca Itoobiya ah hooyo ku dhalatay aabahay boodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yiraahdaa hawd awee geedo badan leh roob baa ku da'a maalin kasta maasha allah waa cadar kuleyl male dhulkaas geed halay saaro astaghfirullah toob ya rabbi warda waxay tiri aniga geed iga soo laalaadiya oo wax lala yaabade aniga geed fresh iga dhigo seexiya halka dhiga anu horta mid baan isweydiiyay ma waxa isleedahay halka bil ugu cadaabi maayo ma waxa isleedahay iilko kaliya la isku cadaaba waxa isleedahay hadaa halka lagu dhigo lagu cadaabi maayo bartaas uma saaraanaysaa isleedahay horta wax lala yaabade waxan sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano xasbuna allah waxayna tiri diintan aan ku dhashay ee aan ku soo barbaaray si wanaagsan uma aqaano oo wax lala yaabade iyadoo maanta intaan laga 45 jira haday ugu yaraato ka tan ay tahay waxa ku leeyahay diinta islaamka si wanaagsan uma aqaano diinta wali kuma eegin laakiin dhaqaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxa ka suurtageli karaa waxa ka macquulka ah sida u dhici karto waxa weeyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyay runtii uu inii jabiyay oo igu yiri adiga waxa ka baqaysaa qabriga waxa ku leeyahay dhakhtarkan la xiriiray wuxuu igu yiri waxaad ka baqaysaa qabriga qofaan ka baqin ba jira qof kasta oo islaam uu ka baqaya in la cadaabade cadaabta ilaahay inuu iska xisi aasha aakhiro iyo qabrigana wada wax iska xisi ma aha inaad tiraahdo cadaab baan ka baqaya iyo wala cadaabi ay qabriga la isku cadaabi qofkii adduunyada ku sii shaqeystay adduunyadan waa imtixaan balen okay qofkii adduunyada ku sii shaqeystaana
dee waa kii aakhire liibaana if iyo aakhiraba kuwii liibaanana allah inaga dhigo. isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaaye uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono. ninkan dhakhtarka wuxuu igu yiri aniga meydkayga waa la saxiixay in la gubo ayaa saxiixay bayna tiri. isagu waa nin gaala, gaaladuna way naga mabda duwanto wax kala istaanba maaha inaan ku dayno inaan inagana geedna saara ama naga soo laalaadiy yalaan ma haddayna idhaano baleen aran waxa kale soo wado. aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arkow maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaab badan waxaan leeyahay haddaba igu yidhahdaa deeq adduunka kaale kusoo wareega xaggan iyo xaggan. maalintaasaan wareeg u baahanahay. maalintaas diyaarada halay saaro haligii meeshaas geed halay saaro halayga soo wado geedka korkiisa hala ii firaasha hala ii geeya raka halay sameeyo wax geedaa lagu sameeyo. waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya. asalaamu calaykum kulaha maalinkan dhintaan u baahanahay wareeg maalinkaa diyaaradda saara. wallahi wax lala yaabo wallahi anigu waan la yaabanay markay ka sheeganayso wax lala yaabo de abidkiina maanan arag manaanan maqal. allah ku soo haday allah ku soo hanuuniy. intaan kaga tegaynaa videogan haddii aad muuqaal ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa 1,000 jeerba inaad subscribe saarto like-na saarto. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. waxaan kaga tegayaa sidaa iyo amaano allah.